إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إنو جيره ميل أقبشه أو قادته وانذا إيا وعدك إيا عقل أنت تأنا وحويان وقلبي نول سيد ربي القرآن كأنه الشيء إن في ذلك لذكرى أرمها لقصة والرمي وانا إيا عقل العلم باكو جرت يأيو جرتا لمن كان له قلب عدي قلب له وضدك وردن قلبي ووذليه وضنه وقوة يا الله تعالى ما وضع قلبي نول وفهمية أي لغا وضع سيدا استردد بالرب تبارك وتعالى آيات كلا معناها سوكو عديو وحليها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين قرآن كان يوحك لما هو أنوانا إيا عقل علم يوحك صاليون إيا قرآن عبد لينذر من كان حيا وحنوصل ذاتشيي إنو أدقو عدي النور عدي أحمد نور وميان الله وضع النولين تدخلنا في وقوة الجرتين أيضا معناها لقموه يوحى لقوة من كان حيا أي حي القلب روحي قلبي جيسو النولين وهو فهميه كاس أيا قرآنك وعد جيسية وانديسة انتفاع سنية محيوالك وقشان لهابو هايستا خسندي وقشان لهابو هايستا ماشي وكردن لهابا uddiyaarsan hadayna meeshii ku diyaarsaneen dabayshan ku maraysa umbu raacaya ay meel la ku gali maayo sidaas daraadeed waa inuu qalbigaagu u diyaarsan yahay waanada aqbalideeda iyo intifaacsiga ayada kale quraanka kamid rabbi macnaha ku sheegay tabaaraka wa taala waxa uu yiri inma yatadhakkaru ulul albab waxa uu waana qaatay waa kuwa qalbiyada iyo aqliyada fayowle وما يتذكر إلا أولو الألباب موانقاته وعدنا ما انتفاع صدر إلا قوة قلبي يضعي عقل يد فيولا مويانا لأن عند المحققين عقل جاء قلبي قواسكم سيدا ازدراد أولو الألباب عقول إيا قلوب فيول عدي له هم بوانا ذا قادريس وانتفاع سنيس هذه كانت تكما أنفعيس قضب كاسي وويلكي القلوب أوعية قلبيض وويلل ويل وحاكبوح النفاق يقالنمو ويلنا وحاكبوح الشك ويلنا وحاكبوح حسد يقشن ويلنا وحاكبوح الجهل يمجدي ويلنا وحاكبوح إيمان النور باكبوح ويلنا ونولي هاي من نوى بختي سيدا استرادد ويلك آد هايستو iyo qalbigaagu sida uu yahay ayay ku xiran tahay saamaynta oo quraanku kugu yeelanayo taasi waa maxalkii iyo meeshii aqbali lahayd shuruuti hadaynu nidaamno way farabadan tahay laakiin wixii hadaynu wax ka tilmaano waxa kamid ah waaladu waxay ku anfacaysaa oo quraanka akhrinayso iyo wacdiga iyo wax sheeg wax ku taraya kow marka aad danayso markaad u dhag raariciso markaad si fiican u dhagaysato markaad isku taxallujiso Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu yiri inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid sharti waxa inuu maqalkiisa rido maqalka tuuro maqalka uu siiyo cidda waxa uu dhageysanayo inuu maqalkiisa kulli u jeediyo wata aayadka rabbi kuleeyahay tabaaraka wa ta'ala wa idha quri'a al-qur'an qur'aanka marka la akhriyo fastami'u lahu dhageysta wa ansitu dhaghaariya waxa kale dhagtiina ku dhacayad ku mashquulaysaan oo dhan joojiya wa ansitu dhaghaariya maxaa laga helayaa marka
lacallakum turxamuuna waa laydin naxariisan. qur-aankii waa idin anfacaya, qur-aankii waa idin anfacaya. waa goorma? waa markaad danayso, waa markaad dhegaysato, waa markaad dhag raariciso, waa markaad isku taxallujiso. laakiin haddaadan isku taxallujin waad iska akhridaa, waad martaa, dhegtaaduu ku dhadhacaa, laakiin dan badanba kama lihid. adeer kuma intifaacaysa. saas daraaddeed aw alqa samca, waa inaad dhegaysi xaggaaga ka yimood kalliftay, isku kalliftay, waa inuu meesha ku jiro. sidaas daraaddeed qalbigu waa inuu xaadir yahay. allah tabaaraka wa tacaala aayado kaluu macnaha ku tilmaamay, maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdath, uma yimaado dikri xagga rabbi ka yimid oo cusub, muxdath la soo darrisiiyey, ila istamacuuhu wahum yalcabuun, ilaa way dhegaystaan ayagoo ciyaaraya. laahiyatan quluubuhum, qalbiyadooduna ay mashquulsan tahayba. waa dhegaysanayaan laakiin way ciyaarayaan, xaalado kaley ku jiraan. waa dhegaysanayaan laakiin quluubtoodu wax kaley ku mashquulsan tahay. allah tabaaraka wa tacaala qolyuu sidaa ku eedeeyey. waxaa la doonayaa, sidaas daraaddeed baa nabigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, qur'aanka akhriya intay quluubtiinnu u dulmayso. qalbigu markuu xoogaa qur-aanka ka soo istaago ha ku qasbin, ka jooji, xaalad kale iyo marxalo kale raadi. li'anna waxaa rabaa maqsuudka iyo muhimmaddu waxa weeye waa qalbigu inuu goobjoog yahay, lana socdo waxa uu dhegaysanaya, waxa uu akhrinayo. waa shardi kaleo asaasi ah. shardiga xigaayu waxa weeye haddaad doonayso inuu qur'aanka iyo mawcidadu wax kaa beddesho, shardiga xigaayu waxa weeye waa in qalbigaagu uu iimaan fiicani ku jiro. kolba qadarka iimaankaagu dhan yahay baa intifaacaaga qur'aankuna dhammaanaya. allah wuxuu yidhi wadakir, waani, nebi maxamedow dadka wax u sheeg, waani, faina adikra tanfacu almu'miniin, waanadu waxay anfici dadka mu'miniinta ah keliya. ina adikra tanfac almu'miniin, iyagaa intifaacsan, ayagaa aqbali, iyagaa qaadan, ayagaa yani muxuu ahaay isbeddeli. qadarka iimaankaagu dhan yahay ayaa waana qaadashadaaduna dhan tahay. haddaad is aragto inuu wixiiba uu kaa korboodayo, yacni saamayn kuguma leh, qur-aankii saamayn kuguma leh, wacdigii saamayn kuguma leh, waxaad ogaanaysaa arrintaasi waxay ka turjumaysaa qalbigaaga iimaanka ku jira ayaa tabar daran. xanaftii baa ka tagtay, xooggii baa ka tegay, waa daciif. iimaan siriirsan oo sakaraadaa kugu jira. iimaan sakaraad ah wax badani marka ma qabsanayo. nebigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamayaa, iimaanku waa duugoobaayoo qalbigiinnu ku duugoobaa sida maradu u duugowdoo kale. ee allah waxaad weyddiisataan inuu qalbigiinna iimaanka ku cusboonaysiiyo. hadduusan iimaanku cusbaynoo duugoobo, wax qaadashadiisu waa yaraanaysa. hadduu daciifo, wax qaadashadiisu waa yaraanaysa. saas daraaddeed wadakir faina adikra tanfacu almu'miniin. allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala sidoo kale, inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum. mu'miniinta iimaankoodu dhammaystiran yahay waxaa lagu gartaa idaa dukira allah, markii ilaahay la xuso, wajilat quluubuhum, qalbiyadoodaa baqdin baa gasha. waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu, aayaadka alla marka korkooda lagu akhriyana, zaadathum iimaana, aayadahaasi iimaan bay u kordhiyaan, waa isbeddelaan. allah xuskiisa markii la xusana, cadamada ilaahay iyo weynankiisa yaa qalbigooda saameeya. aayaadka rabbi markay maqlaanna iimaankaa u kordho, u siyaada. macnaheedu maxay tahay? iimaanku markuu kaamil yahay, natiijada iyo midhihiisa waxaa ka mid ah waanada iyo wacdigu inay ku anfacaan oo ku saameeyaan. mar kastoo iimaankaagu daciif yahayna, saamaynta wacdiga iyo waanada qur-aanka iyo sunnadaa yaraanaysa, ay kugu yeelanayso, wabitaali isbeddelkaagaa yaraanaya. marka dambena waabaad la qabsanba shay caadi ay kuu noqonaysa. waxaa ka mida shuruuda loo baahan yahay alfahmu can illaahi tabaaraka wa tacaala, inaad fahanto allah tabaaraka wa tacaala aayaadkiisii, inaad fahanto. fahm maxaa laga wadaa? qur'aanka kariimkii waa luuqadda carabigu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin. sunnadii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dhaxalkiisiina luuqadda carabigaabay ku qoran tahay.
seed ku fahmi kartaa haddii aadan marka luqaddiiba garanaynin luqaddiiba haddaadan garanaynin seed ku fahmi seedsa u dhuuxi kartaa maqsuudka iyo macnaha aayadda ku jira ee qalbigaaga saamayn lahaa seebaad ku heli kartaa luqaddiiba ma garanaysid taa macnaheedu ma aha qur'aanka bimujaradihi alfaaddiisa in la akhriyaayo ajir waa laga heli laakiin maqsuudkii weynaa wuxuu ahaa inaad hesho maqsuudka iyo sirta meesha ku jirta oo macnaha rabbi garato tabaaraka wa tacaala maxay aayaddu ka hadlaysaa maxay kaala hadlaysaa maxay ku faraysaa maxay kaa reebaysaa maxay kuu jidaynaysaa waa inaad fahamto wey sidaas daraaddeed waana qaadashadu waxay farac ka tahay fahamka kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak waa kitaab aan soo dejinnay buu rabbi leeyahy tabaaraka wa tacaala oo khayrkiisa iyo barakadiisu badan tahay maxaa loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaatihi inay aayadihiisa dhuuxaan inay aayadihiisa aad iyo aad macnahooda u dhuuxaan markay dhuuxaanna waliyatadakara ulul albaab inta caqligooda iyo qalbigoodu fayow yahay marka ay waana qaataan waana qaadashadu maxay ka dambaysaa marka tadabburkay ka dambaysaa fahamka iyo dhuuxidda macnihii marka in la dhuuxo waana miday salafku ahaan jireen ridwaanullaahi calayhim saxaabada nebiga sal alla alay wasalam iyo taabiciintu mudnaanta koobaad waxay siin jireen qur'aanka macaanidiisa inay fahmaan xifdigana isagay ka hormarin jireen waa arrinta innaga inala leexatayoo xifdigiiyo akhrintaa inala horreeya laakiin fahamkii baan gadaal marinnay halkaasaa waxaa marka soo baxaysa luqadda carabiga luqadda qur'aanka iyo sunnada barashadeedu waa waajib qadarka kuu suurtagelinaya inaad fahanto qur'aanka iyo sunnada qadarkaasi waajib buu kugu yahay maxaa yeelay qawaacidda shareecada waxay leedahay shayga waajibka ah wixii uusan dhammaystirmi karin ama aan la gaadhi karin in la helo mooye waajib buu noqonaya waajibka qur'aanka in la fahmayo waa waajib sunnada in la fahmana waa waajib ma la gaadhi kara haddaan luqaddii qur'aanka iyo sunnada la fahmin wabittaali luqadda fahamkeeda iyo barashadeeda qiyaasta kuu suurtagelinaysa waajibka iyaduna waa waajiboo waa laazim halkaasaa waxaan doonayaa inaan baraarujiyo in badanoo muslimiinta ka mid ahay walil'asaf khaasatan da'yartooda luqaddii carabiga waa liidnay luqaddii carabiga waa ka tashannay luqaddii carabiga waa gacan bidixaynay luqado kaleeto oo calaf adduunyo in lagu heliyeyna lagu helin allahu aclam ayaynu tarkiiskiiyo xoogga saarnay halkaasaa xaalkeennu waxaynu noqnay innagiiyo qur'aankii inaynu kala go'annahay innagiiyo axaadiistii nebigu inaynu kala go'annahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo xidhiirkii iyo xadhiggii inoo dhexeeyey maqan yahay oo luqadda carabiga ah sidaas daraaddeed luqadda carabiga barashadeedu waa waajib siday muxaqiqiin fara badanoo culimmada ka mida ay tilmaamayaan waxaa u dambeeya shardiga u dambeeyaya si kasta haddaad u dadaasho ood asbaabtaasoo dhan la timaado rabbigaase uusan ku waafajinnin waxba kuu suuroobi maayaan tawfiiqda ilaahay baa iska leh waafajintana isagaa iska leh allah kaalmayso tabaaraka wa tacaala istacin billaah allah kaalmayso tala saaro isaga bari weyddiiso inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala wacdiga iyo waanada qur-aanka kugu anfaco siduu nebigeennu ina baray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ina baray duca dheeraynu ku ducaysananay ka mid tahay ijcali alqur'aana rabiica qalbii ilaahuw qur'aanka waxaad ka dhigaa rabiicii qalbigayga ka dhig mid murugtayda tagsiiya qalbigayga khayr iyo wanaag ka soo saara noloshayda saameeya ilaahuw qur'aanka ka dhig waxuu allah weyddiisan jiroo ducadiisa u badnaan jirtay ilaha quluubta rogrogow qalbigayga diinta ku sug ducada u badan bay nabigeenu ku ducaysan jiray sal alla alay wasalam wuxuu allah weyddiisan jiray cilmi naafica iyo qalbi khushuucsan wuxuu allah ka magangeli jiray cilmi aan waxba anfacaynin iyo qalbi aan khushuucaynin iyo isbeddel aan dhacaynin noloshaadiiba isbeddel ma samaynayso allah tabaaraka wa tacaala ayuu ka magangeli jiray nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed dadaalna la imow intii suurtagal ah rabbigaana kaalmayso awooddaadu waa yar tahay awooddaada iyo xeeladaada iyo xooggaagu waxay ku xidhan tahay inuu ilaahay midhaha kaa siiyo inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ku waafajiyo ciddii ilaahay qalbigiisa islaamka u sharxaayey oo ilaahay uu doonayo inuu hanuuniyo qalbigiisu wanaagga u sharxa u waasiciyaa si fudud buu ku aqbalaa ciddii alla uusan doonaynin inuu qalbigiisa khayr geliyana allah tabaaraka wa tacaala waa cidhiidhiyaa qalbigiisa
markaasaa khayr inuu qaato wanaag qaato waxay la mid tahay isagoo lagu kallifay oo kale samada fuul. war samada miyaan fuuli karaa? laabtiisaa cidhiidhyamaysa oo qalbigii baa jiq noqonaya oo waxba ma qaadan karo oo salaad ma tukan karo oo qur'aan ma akhrin karo oo cilmi ma dhagaysan karo. waa soo boodaya. allah baa gacanta ku haya quluubta, isagana addoommadiisa maamula. rabbi tabaaraka wa tacaala kaalmayso, dadaalna la imo. waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin.